Mr. President. Mr. Prime Minister. It's good to talk to you. And before anything else, I want you to know that I'm signing now, as we speak, Israel's official recognition of Somaliland and its right of self-determination. Our friendship is seminal and historic. So I'm very, very happy and I'm very proud of this day. And I want to wish you and the people of Somaliland the very, very best there. I think this will be a great opportunity for expanding our partnership. We intend to work together with you on economic fields, on agriculture, in the fields of social development, all the things that we hope we can assist you, and we obviously believe in this friendship. And I have to tell you that there's a lot of excitement here in Israel as well. waxaad doonto waad heli mahmaha baa jirta tiraahdaa waad qaboobiyo qunyar soo soco waad qaboobiyo qunyar soo soco wax badan bay nimanka soomaaliyeed u kala duseen nimankii iyaga ahaaye yaa sheekadani waxay soo xusuusay qoyanta nimanka naagaha la guursataa ee weliba dabacday in aroos ballaadhan oo weyn loo dhigo yaa ee waxa weeyaan ninkii ku tiirtiirsataa hadduu doono tii hore u ka fikerayaa qalbi aanay keli ku ahayn bay ma garanaysaa quudaysaa mogti iyadoo isleh adigaa lagu doortay yaa you are the chosen one adigaa lagu doortay caqligeedu ma gaari karo sidii tii hore looga xiisa dhacay baa lagaaga xiisa dhacaya adigana marbaa ta horeba sidaa loo xiiseynayay ma garanaysaa waa qaboobiyo qunyar soo socaya arrintan la yidhahdaa waxay u kala dusaanba maanta somaliland waxay dareemaysaa soomaaliyana way rabtay ibraahimiga koodhka 600,000 bay ku bixisay inay ka qayb gasho laakiin annagaa nala doortay ibraahimiga koodhkaan ka qayb galay ibraahimiga koodhka waxa weeyaan muslimiintii oo kiish lagu shubtay oo lagu sito tuurta halkan yaa oo waxa weeyaan sidii la doono laga yeelayo jaso dad doonayso inaad frank iyaga noqoto waa inaad noo ogolaataa inaanu si walba ka yeelo alla rag la-aan weyna caalamul islaam rag la-aan baa haysa nimankaa kale adduunku markay muslimaan unbay dee muslimadu rajo leedahay kolley lifetimekeenna arki mayno waqtigii waxaynu ku jirnaa truly jirnaa rasuulullah sala allahu calayhi wasalam uu sheegay ina yidhi waqti waxaa la gaari doonaa diinta islaamku ay la mid noqon doonto dhimbiil daba oo gacanta loo saaray dadka muslimka oo ay ka wada cararayaan yaa ku soo dhawaada khaniisnimadii oo caadi noqotaa waayo kama hadli kartaan ku soo dhawaada caruuraha oo la waayo waayo kama hadli kartaan ku soo dhawaada dhulka iyo dadka oo lagu tarigareeyo waxyaabo badan oo hubku ka mid yahay oo chemicalsku ka mid yihiin waxyaabo badan ka mid yihiin macdanta oo la gurto oo ilaa iyo inta yar ay ugu dambaysa la gocgocsado yaa la gocgocsado laakiin 10% baa idinku filan 5% haddii layna siiyo yaa because waa lagu doortay qoyan